Assalaamu calaykum asxaabta Soomaali Fit ku xiran. Waa maxay khatarta ay leedahay buurnida ama baruurta? Buurnida waxaa keena inay badato soo sii deynta insulinta uu jirku soo deynayo, taasoo ka dhalatay waxyaalo badan. Waxayna u badanaysaa insulintu waxaa kor u kacay heerka sonkorta dhiigga ku jirta, taasoo loo baahan yahay in laga yareeyo. Haddii kale waxaa ka dhalanaya xaalado caafimaad darro sida xanuunka sonkorta loo yaqaan. Insulintu shaqadeedu marka waa inay ka yareyso dhiigga sonkorta badan. Marka ay insulintu badan tahay, baruurta ama duxda aad cunto markaa lagama faa'iideysanayo energy ahaan, waa la kaydin. Waana sida caadiga ah dhacda marka insulintu ay badato, dhiigga ku badato. Sidoo kale insulintu inay badato waxaa ka qayb qaata oo keena cunitaanka faraha badan, sonkorta aad badsato, stresska, cunooyinka duxda leh ama saliidaha ku badan aad badsato. Sidoo kale cunooyinka fast foodka loo yaqaan waa ay keenaan ayaguna. Insulinta marka ay badan tahay, dhiigga ay ku badato ama jirka ku badato, waxay si toos ama bilow u tahay xanuunka loo yaqaan sonkorta ama macaanka. Astaan bixinaysa weeye in xanuunkaasi qofkaasi uu khatar bilow ah inuu ugu jiro. Xanuunka macaanka marka waxa uu ku yimaadaa in ay insulintii shaqo qabtay ama ay shaqayn weyday. Sidoo kale waxay keentaa cayil bay keentaa, qofka cayil bay ku keentaa insulinta hadday badato, jirka ku badato soo sii deydeeda. Sidoo kale waxay ka keentaa glucose xanuun jirka oo dhan ah. Cholesterolka ay dhiigga ku badisaa, kaasoo khatar badan qofka u geli karo hadhow. Sidoo kale waxay keentaa dhiig kar bay keentaa. Insulinta oo aad u badata muddo kadib waxaa ka dhalanaya insulin resistance wax la dhaho, taasoo micnaheedu tahay heerka sonkorta dhiigga ah inay kacsan tahay oo wax yareeyo la waayay, maadaama ay insulinta shaqo qabtay insulinta faraha badan la soo deynayo. Tusaale ahaan, haddii aad carbohydrate badan cunto ama sonkor badan aad cunto, dhiiggaaga waxaa tegaya imanaya sonkor badan iyo insulin fara badan. Sonkorta dhiigga oo badan waxaa loo bedelayaa dux ama baruur, taasoo lagu kaydinayo jirka gudihiisa si loo xaliyo dhibtii ahayd sonkorta dhiigga ku badan. Waxaa lagu kaydinayaa marka sonkortaasi caloosha, qaarka dambe iyo maqaarka hoostiisa. Buurnidaas ama baruurta noocaasi waxay keeni kartaa xanuuno fara badan ay ka mid tahay xanuunka sonkorta loo yaqaan dhiig karka, wadne xanuun, kansarro kala duwan sida kansarka naasaha, glucose xanuun, xanuunada neerfaha ku dhaca, khalkhal inuu ku dhaco burburinta cunooyinka qaar ama laga faa'iideysan waayo. Tani waxay sii badanaysaa khatarta ama heerka buurnida qofka, taasoo hadhow qofkii kusii badanaysaa khatarta xanuunadan iyo kuwo ka badan ay kusii dhacaan. Sidoo kale gabowbay ayay keentaa. Saameyn ayay ku yeelataa dareemaha ragga, taasoo ka dhalatay saameynta dheecaanada ka qayb qaata taranka lagu yeeshay. Tani calaamadda ama xanuunkani gaar wuxuu yahay ragga, dumarka lama qabaan. Khatarta ugu weyn ay buurnida ama ay baruurtu keeni karto waa inay badiso heerka soo sii deynta insulinta, taasoo ka khatarsan saameynta tooska ay leedahay baruurta ama duxda ku badata jirka. Cunitaanka faraha badan sida duxda, carbohydrate iyo sokorta waxay keenaysaa inay insulinta jirka ku badato soo sii deynteeda. Tani waxay keenaysaa in qofku hadhow buurnaado. Sidoo kale xanuuno badan ay ku dhacaan ay buurnidaas keentay. Sidoo kale insulinta faraha badan ee xanuuno badan bay keenaysaa. Insulinta hadhow way shaqo gabisaa sidoo kale, waxaana ka dhalaya xanuunka macaanka loo yaqaan. Dhibta ugu weyn marka waa inay insulintu dhiigga ku badatay way dhibta ugu weyn. Insulinta ayaa ku horseedaysa xanuunada ugu badan ee aan horay u soo xusay iyo kuwo kaleba. Dhibta ugu weyn marka waa insulinta oo ay jirka ku badatay ayaa keenaysa xanuunada ugu khatarsan marka buurnida tooska loo eego waxay keenayso. Sidee loo cabiraa heerarka buurnida? Muuqaalkan oo dhammaystiran description-ka hoose linkigiisa ayaad ka helaysaa. Haddii aad muuqaalkan ka heshay, like ku qabo. Haddii wax badan ka faa'iiday, share u dheh asxaabtaada. Naguna soo biir, subscribe ku qabo. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada.